halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga maqlaysaan waa subax axada 4 bisha Agoosto sanada 2004 bisha Sebtembar sanada 2022 arrimahan barnaamijka subaxnimeedin kugu haynana waxa kamid ah madaxweynaha hore ee wadanka Mareykanka Donald Trump oo madaxweynaha haatan ee dalkaasi Joe Biden ku eedeeyay inuu FBI-da u adeegsanayo siyaasiyiinta ay iska soo horjeedaan dad dhibaato ay ka soo barakeysay guryahoodii oo tii ay ka soo carareen mid ka daran ku wajahaya degmada Xudur ee koonfurta Soomaaliya. waxaan ku eedeysanaayso waxaan ilaahay u kalsoonayso waxaan ilmaad iyo ugu shaqeynayso waxaan ilmahaysana magaalada iska xirxiran oo dhibaato ay ka jirto oo gaari aan soo garaynin ayaan ku soo kordhacnay marka waxaan nolol ma haysano iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka ee Geeska Afrika oo lagu wado inuu maanta gaaro wadanka Itoobiya si madaxda dalkaas ay uga wada hadlaan isku dhacyada ay ka soo cusboonaaday waqooyiga dalkaasi. haddaba booqashadiisa maxay soo kordhinaysaa? aad iyo aad ay u adag tahay in ay wax cusub soo kordhiso sababtoo ah qolada hadda kolba gacanta sarreysa oo Tigreega ah waxay siyaasadooda ay ka duwan tahay tii berigii hore oo ahayd berigii hore inay dhexdhexaadinta maqleen dibna uga noqdeen dhulkii ay qabsadeen oo 200 kiiloomitir wax ka yar adsaabo u jira. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Badar anigu Cabdifaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali. mahadsanid Cabdifaax. Donald Trump ayaa ku eedeeyay madaxweyne Biden inuu qaab siyaasadeed u adeegsanayo FBI-da isagoo ku tilmaamay inuu yahay cadowga Mareykanka. muuqaalkiisii ugu horeeyay oo meel fagaara ah ayuu ka sheegay hadalkaasi tan iyo markii FBI-da weerareen gurigiisa Florida si ay u helaan dukumeentiyo sir. madaxweynihii hore ayaa isu soo bax xisbiga jamhuuriga oo ka dhacay Pennsylvania ka sheegay in weerarka uu ahaa mid ku takrifal awoodeed oo naxdin leh. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa reer Yurub ugu baaqay inay u midoobaan oo ay ka hortagaan tamarta uu Ruushka ku dagaalamayo oo uu sida hubka u adeegsanayo. isagoo ka hadlayay maalin kadib markii Moscow ay sheegtay inaysan dib u bilaabi doonin dhoofinta gaaska ee dhuunta Nord Stream ayuu madaxweyne Zelensky sheegay in Ruushka uu jeedkiisu ahaa inuu cabsi geliyo oo uu wiiqo dhammaan awoodaha reer Yurub. hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa sheegtay in dib loo celiyay gantaalka Artemis ee loo diray dayaxa. waxay sheegtay in ilaa iyo dhowr toddobaad oo soo socda ay u badan tahay in aanu jiri doonin isku day kale oo lagu aadayo dayaxa. aadida dayaxa ayaa dib loo dhigay kadib markii la ogaaday in dayax gacmeedka uu meel shidaal ka daadinayay. wasiir ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa sheegay in daadadka ba'an ee uu dalkiisa wajahayo ay yihiin musiibadii ugu xumayd ee ka dhalatay isbeddelka cimilada ee taariikhda dhow. Ihsaan Iqbaal ayaa sheegay in nolosha 33 milyan oo qof ay saameeyeen fatahaadaha kuwaasi oo si toos ah uga dhashay kulaylka adduunka. ugu dambeyntiina Mali ayaa sii daysay 3 haween oo ka mid ah 49 askari oo ka socday Ivory Coast oo bishii July lagu xiray garoonka caalamiga ee Bamako. waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen calooshood shaqaystayaal kadib markii ay si angabasho lahayn u galeen Mali iyagoo aan fasaxaysan. laakiin Ivory Coast oo marar badan codsatay in la sii daayo askarta ayaa ku adkaysanaysa in ciidamada waddo sax ah lagu geeyay si ay u taageeraan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. warkiisa waxnimana waa naga inta cagayare. aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayuu kaasi wararka caalamka qodobadii ugu door corona ayuu nala socodsiinayay dhageystayaal jargarooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownaa sida aad warka caalamka ku maqlayseen madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha haatan dalkaasi ka arrimiya Joe Biden waxa uu ku eedeeyay inuu FBI-da dalkaasi u adeegsanayo siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda. waxauna ku sifeeyay inuu yahay cadowga qarankaasi. madaxweynihii hore ee hadalkiisii ugu horeeyay ee uu ka jeediyay meel fagaaraha tan iyo markii aadaha Mareykanku galeen gurigiisa ku yaal Florida si ay ula soo wareegaan dukumeentiyo sir ah
ayaa dad isugu soo baxay Pennsylvania waxa uu u sheegay in xoogga lagu galay gurigiisa ay tahay ku tagrifal awoodeed. faafinta warkan waxaa isku soo duway haatan suuday uu la soo biiray Axmed Badar. bal Axmed muxuu sheegay Trump? cabdi fataax Trump ayaa waxa uu ku shabadeeyay madaxweynaha imika xilka haya Joe Biden inuu yahay cadowga dalka Mareykanka sida uu hadalka markaasi u dhigay xilli uu ka jawaabayay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu ku tilmaamay in xisbiga Republicanka ama jamhuuriyiinta iyo taageerayaashooda ay yihiin kuwa mijaxaabinaya ayuu yiri dimuqraadiyadda Mareykanka. sidoo kale waxa uu Trump cabdi fataax ka hadlay gelitaankii ay laanta dambi baarista Mareykanka FBI-da ay gurigiisa ku yaala Florida ay markaasi u dhaceen. waxa uu markaasi Trump isagoo ka hadlay Pennsylvania xilli lagu qabanayo soo bax uu sheegay intaasi ay tahay cadaaladda oo si xun loo adeegsaday. waxa uuna ka digay in arrintaasi cawaaqib aan weligeed la arag markaasi ay ka dhalan karto. Trump ayaa waxa uu sheegay in iyadu ay jirto in protocol ahaan iyo sharci ahaan waaxda dhanka cadaaladda iyo weliba waaxda dambi baarista Mareykanka FBI-da ay yihiin kuwa madax bannaan, balse imika ay u muuqato in markaasi si gaara loo adeegsanayo siduu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in arrintaasi la iskula xisaabtamo. cabdi fataax sidoo kale waxa uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump isagu uu sheegay in madaxweynaha imika xilka haya hadalka ka soo yeeray ee ah in ay mijaxaabinayaan dimuqraadiyadda ay tahay hadal markaasi nacayb iyo kala qaybsanaan ku salaysan oo ka soo yeeray ayuu yiri madaxweyne Mareykanka oo markaasi xilka haya. waxa uu sidoo kale uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan markaasi xisbiga jamhuuriga aan markaasi xubnihiisa iyo taageerayaashiisa aan markaasi qaban. waa tahay Axmed marka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka wax faahfaahin ama ka bixisay cadeymaha ay ka soo heleen guriga Trump ee ay baarayeen. waxda cadaaladda waxa ay ilaa imika iyagu sheegeen in ay dokumentiyo kala duwan oo qaarkood ay siro aad u sareeya ay yihiin ay markaasi ka soo heleen guriga Trump, taasi oo ay sheegeen in ay sharciyan ahayd in halkaasi aan la geyn ama gurigiisa aan la geyn. waxa ay sheegeen in markii guriga Trump ay u dhaceen ama ay galeen ay ka soo heleen halkaasi ilaa iyo 11,000 oo dokumenti oo ay markaasi dowladda ay leedahay, isla markaana sharciyan ay ahayd in xarunta kaydka qaranka ay yaalaan dokumentidaasi oo aan ahayd in aan la geynin guriga madaxweynihii hore dalkaasi Donald Trump. waxa warqadaha ama markaasi dokumentida la soo helay ay kamid ahaa 18 dokumenti oo iyagu ay ku qornaayeen sir aad u sareeya sida ay sheegeen 53 dokumenti oo sir ay ku qornaayeen iyo waliba 30 dokumenti oo iyaguna ay ku qornaayeen inay yihiin kuwa qarsoodi ah. waxa markaasi ay sheegeen in dhammaan dokumentidaasi ay ahaayeen kuwa aan loo baahnayn in guriga Trump ay yaalaan. marka cabdi fataax waxa ay waxda cadaaladda ee dalkaasi Mareykanka iyagu sheegeen in waxyaabo badan oo halkaasi ay ka raadinayeen oo sir ah ay markaasi ka soo heleen, balse Trump arrintaasi wuxuu ku tilmaamay mid FBI-da Mareykanka uu markaasi madaxweynaha si khaldan u adeegsanayo. aad mahadsantahay Axmed Badar ayuu kaasi ahaa. faafinta warkaasi ayuu inala socodsiinayay. dabcan wixii warkaasi intaas dheerna waxaad dhawaan ka eegi doontaa barteen internetka ee bbcsomali.com, halkaas aad ka heli doontaan xogtaasi oo dhammaystiran. balse markan dhanka Soomaalida aynu aadnay iyadoo shalay qaramada midoobay ay ka digtay in dadka ku nool qaybo ka mid ah Soomaaliya ay qarka u saaran yihiin macluul, isla markaana loo baahan yahay gurmad degdega. inta xaaladdu aanay kasii darin ayaa meelaha ugu daran waxaa haatan ka mid ah deegaanada koonfur galbeed. dadka kusoo barakacay deegaano ka tirsan deegaano ka tirsan gobolka Bokool ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay soo gaarayeen magaalada Xudur ee gobolkaasi, halkaas oo ay dhowaan dagaallo ka dhaceen. qaar ka mid ah dadkaasi oo BBC-da la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhib u badan dhanka nolosha ay haatan halkaasi ku wajahayaan waa magaalada Xudur oo ay soo gaareen. dadkaasi waxaa ka mid ah Maryam Cumar Maxamed oo sheegtay in dhowr iyo 10 maalmood ay safar ku soo jirtay, haatanna xaaladoodu ay adag tahay. waxay u warantay Siciid Xasan Anteeno. waxaan ka soo barakacay qoraxley iyo caato iyo qurac joome ayaan ka soo barakacay. ana keliya ma ahan, dad badan baan ahayn. waa taa Maryan waxay noo sheegtay inaad ka soo qaxday qurac joome oo ka tirsan gobolka Bokool, marka sidee ku soo gaartay halkan aad joogto?
walaalo waxaan ku soo gaari karooto ayaan soo raacay gaaridameer baan soo raacay 15 maalmood baa waxaan ku soo jiray dhexda odayga aniga qaleeqa dhexdaan kaga soo tegay magaas waa gartay oo sababta u soo tagtayna maxay tahay sababtaasaan dagaaladii iyo rafaadkii iyo qaxi meesha ka dhacay iyo dhibaatadii meesha ka dhacday iyo abaarihii oo ku koondarsoonay ayaan ka soo carray ma garan hadda halkee ku sugan tahay waxaan ku suganahay meel buusus laga dhisayo oo qaxooti ah oo ka mid ah xudur oo meel laysugu tagay oo 99 tuulo isugu tagtay ayaan buul ka dhisnay waxaan ku adeegto ma hayso waxaan ilaahay ugu karsada ma hayso waxaan ilmaha iyo ugu shita ma hayso waxaan cunno ma haysano magaalada iska xirxiran oo dhibaato ay ka jirto oo maxay ahayd oo gaari aan soo garaynin ayaan ku soo kordhacnay marka wax nolol ma haysano marka waa sidaa waa tahay marka waxay naga warantaa maxaad kala soo kulantay wadadii aad soo martay qurca joome ilaa hadda meesha ku sugan tahay wadada waxaan kala soo kulmay oon iyo rafaad iyo qorax iyo ilmihi oo cagaha murxaan ilaahay baan ku dhaartay oo xaraaska iyo dhibaatada iyo rafaadka ilmaha ka muuqda haddaad aragto ilaahay baa wax oga ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhibaato inuu ilaahay naga bixiyo ma jirtaa marka dad ka mid ah oo dhibaato ka soo gaartay intaad kusoo jirteen wadada dhimasho ama dhaawac islaam yar oo kuftay oo lugaha ka murxaan iyo ilmo yar oo meesha ku dhintay oo sidana dhibaatadii meesha kale oo soo gaartay oo socodkii iyo gaajadii iyo ookii iyo jiri uu xanuunsanaa markii soo kaxay uu xanuunsanaa marka wiilkaa yarkaabaa naga soo dhintay oo qallo annaga nala soo jirtidooda siaan ilmada ay dhalaan bay ahayd marka walaala horta rafaad halkaa ma dhaafi karo ilaahay waxaan ka baryaynaa soomaali iyo muslimiinta meel walba ay joogaan inuu ilaahay rafaadka uu ka bixinaa ilaahay uga baryaynaa ma fahan goobtaan hadda aan ku sugannahay biyo haysano oo raad ma haysano oo gogol ma haysano oo wax aan cunno ma haysano islaamka ayaa wax noo soo qaraabo kiilo bariisa imisoo miskiino sonkor ah soo qaraabo oo xaafadaha laga keeno oo muslimka noo soo gurmaday ayaan habeenka ku darinaa calow annaga aan saarano buurkaan dhisanay buul baan dhisanay ruusaan dhisanayna calow aan saarano oo habeenkii aan ka galno ma hayso dhaxan baana dishay haraadkaa noo dheer biyo la-aanta noo dheer caafimaad xumada noo dheer waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu gargaar degdega oo ilaahay uu noo keeno oo ninkii musaawareysa iyo hay-adaha iyo qaarimaha iyo muslimiinta meel walba ay joogaan inuu ilaahay nooga soo qaadaan ka baryaynaa ma fahan waa gartay marka laga tago marka dadka deriska ama dadka idin dhow wax idin keeno ma jiraan hay-ado kale oo gargaar idin siiya sida hay-adaha qaramada midoobey ama dowladda oo kale wax hay-ada oo hadda wax noo keento olada ma arag hadda kolley dad wax la siiyo kolley maan arag annaga kolley xoogis baan ahaan intaas hoos walaato hoos isla socotaan ahaan waxa annaga gadaasheena ka imaaday wixii naga soo horeeyey intaasoo kunbay isku noqdeen oo way badan yihiin meelo kale istaaga male annaga wax hadda gargaar hadda nala siiyey oo hadda aan gacanta ku hayno ma jirto waa tahay ugu dambeyntii maxaad codsanaysaan waxaan codsanaynaa marka hore in cunno nala siiyo daawo nala siiyo gobol nala siiyo alaab nala siiyo oo si gargaar degdega naloo soo fidiyo magaalada ayadoo iska cakiran tahay oo wax soo gelaayo gaadiid aana lahayn ayaa haddana waxaa soo gelay 99 kun oo tuulooyin intaasaa ka kala yimaadeen marka annaga kali ma ahan intaasoo qoysas baa soo barakacday way badan yihiin waxaan hadda aan tiri aan la gaarayo male qooda waxaa jira buus intuu iska istiray annagoo kale ah oo uu ku horoodu u waayey xijaabkuu xirnaa mise cabaayadu waa sida xirnaa intuu jeexay ilmaha gogol ooga dhigi ma fahan taasi waxay ahayd maryan cumar maxamed oo u waramaysay saciid xasan anteno qaar ka mid a dhegeystayaasheena facebooka ayaa ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibtay midii 2 iyo 3 inta ka gaaraan soo qabtee iraad aydin xasan oo ka soo qoray degmada bookh waxa uu leeyahay dadka dhibaato ay ka soo barakaceen tii ay ka soo carareen mid ka daran ku wajahaya degmada xudur run ahaantii aad baan uga xumahay jahwareerka iyo barakaca ay wajahayaan bulshadaas waxaana ilaahay ka baryaynaa in uu raxmadiisa noo shubo colaadahana naga joojiyo aamiin faarax maxamed xirsi oo ka soo qoray gaalkacyana wuxuu leeyahay runtii aad baan uga xumahay dadkaas xudur ku sugan ay ku dhacday kud ka guur oo qanjo u guur waxaana alle uga baryayaa isaga wax bixiye in uu naga saaro dhibaatooyinka isbiirsaday ay ugu weyn yihiin colaadda abaarta iyo qabyaaladdu
ina raxmatullaahi qariib insha allah. faarax axmed cabdulle oo isna kasoo qoray magaalada beledweyne wuxuu leeyahay dadkaasi dhibaatada ay soo barakicisay oo tii ay kasoo carareen mid ka daran ku wajahaya degmada xudur ee koonfurta soomaaliya waa arrin walwalkeeda leh, waxaana isugu darma buu yiri dadkaasi abaar iyo colaado, waxaana la ka baryayaa in uu dhibaatada naga dulqaado. aamiin. waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook oo ra'yigooda halkaas inoogu soo gudbinayay. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxa ay dul taagan tahay 7:16 daqiiqadood waqtiga bariga Afrika. markana ergeyga gaarka ee wadanka Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Mike Hammer ayaa waxa lagu wadaa inuu maanta gaaro wadanka Ethiopia si madaxda dalkaas ay uga wada hadlaan isku dhacyada ka soo cusboonaaday waqooyiga dalkaas, halkaasi oo ku dhawaad 2 sanadood uu ka socday dagaal sokeeye kaas oo malaayiin qof biday in ay si weyn ugu baahnaadaan in la caawiyo. qulqulatooyinka ayaa dib ugu bilowday halkaas ku dhawaad 2 toddobaad ka hor kadib markii 5 bilood ay xabad joojin halkaasi ka taagneyd. wariyaha b b c da Addis Ababa Kalkidanya Biltaal ayaa faafahinta warkan inoo soo diray. waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo oo soo jeedinaya. Mr. Hammer ayaa ku soo laabanaya Ethiopia ku dhawaad muddo bil ah kadib oo halkaasi ka soo tagay markii wadahadallada nabadda ay adkaadeen. haatan arrimuhu aad ayay isu bedeleen. xabad joojin bani'aadanimo oo u dhexeeya dowladda iyo ciidamada Tigray ayaa la jebiyey iyadoo rabshado ay mar kale ka bilowdeen waqooyiga dalkaas. waxaa la filayaa inuu soo afjaro colaadda soo cusboonaatay isagoo sidoo kale Addis Ababa kula kulmi doono madaxda Ethiopia, balse war-saxaafadeed ay soo saartay waaxda arrimaha gudaha Mareykanka ma aysan sheegin inuu Hammer uu sidoo kale la kulmi doono ciidamada TPLF iyo in kale. safarkiisa ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jiraan baaqyada caalamka ee ku aadan dhammaynta colaadda sii kordhaysa, iyadoo ciidamada Tigray ay dalka dariska la Ethiopia ee Eritrea ku eedeynayaan inay xukuumadda Addis Ababa garab ku siiyeen isku dhacyadii ugu dambeeyey, iyadoo maamulka gobolka ay sheeganayaan in qaxooti Suudaan ka yimid ay ku biirayaan ciidamada Tigray. waxaa jira walaac laga qabo in dagaalku uu saameyn ba'an ku yeelan doono guud ahaanba geeska Afrika. Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo aad buu mahadsan yahay. haddaba muxuu soo kordhinayaa ergeygan Mareykanka ee Ethiopia booqan doona? maxayse ka bedeli doontaa dagaalada soo laablaabatay ee gobolka Tigray ka taagan? su-aalahaasi kuwo kale ayaanu weydiinay Faysal Roble oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika. waxa uu waramay wariyaha b b c da Xasan Sheekh Umar. walaal waxa weeye inuu dib u soo celiyo wadahadallada burburay oo hadda dagaal isku bedelay, in uu isku dayo inuu ku qanciyo labada dhinac gaar ahaan Tigrayga iyo Ethiopia in ay dagaalka joojiyaan wadahadalkana dib loo bilaabo. intaasuu hadal uu hadda laga soo xigtay xogayaha isgaarsiinta Mareykanka press secretary-ga ay sheegtay in labadaas sidii ugu dhaqsaha badan loogu soo celin lahaa miiska wadahadalka. intaasuu horta cadeeyay. sidaynu la soconno dagaalka Ethiopia muddo ayuu socdaa, intaana baaqiyo ayay dirayeen beesha caalamku. hase ahaatee baaqyadaasi waxa ay soo kordhiyeen ilaa iyo hadda oo weyn lama arkin. marka socdaalka ergeygan Mareykanka muxuu soo kordhinayaa? aad iyo aad ayay u adag tahay in ay wax cusub soo kordhiso, sababtoo ah qolada hadda kolba gacanta sarreysa oo Tigrayga ah waxay ka duwanaanayaan ama siyaasadooda ay ka duwan tahay tii berigii hore oo ahayd berigii hore inay dhexdhexaadinta maqleen dibna uga noqdeen dhulkii ay qabsadeen oo 200 kilomitir wax ka yar adsaabo u jira. hadda wax alla waxay ka faa'iideen sida ay ku sheegeen hadalladooda ma jirto intii ay dhulka ka baxeen. hadda sida uu uga bixin lahaa innaba looma fadhiyo inay Tigraygu yidhaahdaan waan ka baxaynaa, laakiin waxaa laga yaabaa inay shuruudo adag hor dhigaan ergeyga Mike Hammer oo yidhaahdaan wadahadallada haddii aad rabto inaanu ku soo noqono shuruudaha la fuliyo. shuruudahaasna waa shuruudo mar hore ay kaga quusteen uu Prime Minister Abiy ka gaabiyey ama kaba diidayba, sida dib in loo furo adeega, in laga qaado cunaqabataynta uu saaray iyo ina kale. marka hadda saaka waxaaba soo saareen shuruudo cusub oo kale oo adag oo ku tilmaamaya in ay rabaan Tigraygu inayna wadahadalladu sii fogaan. waxa ugu weyn ee adkeeyey in dagaalka la joojiyo oo labada dhinac ee TPLF iyo dowladda ay dagaalka joojiyaan ee adiga ku muuqda maxay yihiin? waxay tahay in uu Abiy runtii rabo in uu nidaam cusub oo federaalka ka gaabinaya ku soo talaalo dalka Ethiopia, in uu bedelo haddii uu ku adkaado dagaalkan kuna gacan sarreeyo, in uu bedelo qaabka uu u dhigan yahay hadda
axdiga u yaala Ethiopia gaar ahaan arrimaha ku aadan qowmiyadaha in la khafiifiyo ama gidi ahaanba laga saaro Abiy taasay uga dhan tahay iyo asagoo aad iyo aad uga soo horjeeda waxa loogu magacaabay siyaasadan ku dhisnaatay qowmiyadaha isla markaana taariikhdii Ethiopia ee hore dib u dhigtay oo qowmiyadaha tooda xoojisay qolyahan Tigreegu of course waxa ku hoos jira carada ka timid in ay awoodda waayeen taasi kolba meesha way taalaa laakiin mar haddii aanu ka baxnay awoodii oonu la mid noqonnay qolyaha kale ee dowladda ka midka ah waxay rabaan inaanay inaba khafiifin nidaamka qowmiyadaha hadda u yaala inuu ka sii adkaada mooye oo ka sii durka mooye inuu taa ka sii dabco sidii hore ay kaga tegeen inaba nuxurka horta la isku hayaa waa den dagaalku waa fisagana shawaaga arrintaas keenaysa marka ilaa nuxurkaa loo degana u malayn maayo in maraykankiiyo ay heshiin ka dhexdhegi karaan waxayse isku dayi doonaan Mike Hammerna uu isku dayi doonaa markuu taaba gaaro inuu Abiy ku qanciyo in ahdi la'aan isagoo waxba shuruud ku xidhayn inuu u sii daayo gobolka Tigray adeega iyo waxay u baahan yihiin cuntadana looga qaado cunaqabataynta lagu hayo marka taa ma kula tahay in Abiy aqbalayo Abiy kullaba hadda waa laga gacan sareeyaa inay Mareykankana iskuma fiicna inkastoo Mareykanku uu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in Abiy uu meesha sii joogo laakiin haddana isfaham weyn badan ayaa ka dhex taagan in uu ka aqbalay ilama aha sababtoo Abiy waxa uu noqday maxbuus xoogag aad u cakaran oo fakarka aynu sheegnay inaba aan ogolayn kana soo horjeeda marka Abiy qudhiisu dad ayuu u report gareeyaa dadkaas oo u badan amxaara mayl adag oo arrimahan oo dhan diidan kuna adkaynaya Abiy in la kala adkaado oo ninkii rooni reerka u haro tiina dacas bay la gashay Abiy ugu dambeyntii Faisal haddii ergeygan gaarka ee Mareykanku hadda u diray Ethiopia uu ku guuleysan waayo ujeedka halka loogu diray iyo in dagaalka la soo afjaro maxaa xiga dagaal ba'an ayaa sii soconaya dagaal saddex geesooda oo Tigray Eritrea iyo Ethiopia ayaa dhacaya waa la isku hoobanaya cidii roonaan alla og laakiin dagaal aynu taariikh badan ka sheekayn doono ayaa meesha ka dhacayso dad qalato meeshaasi ay ku soo hoyato kaasi waxa uu Faisal Roble oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxa uu warramay wariyaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan qaar ka mid a ganacsatada yaryar ee wareetada ah ee suuqa weyn ee magaalada Gaarisa ee suuq Mugdi loo yaqaan ayaa sheegay in ay salugsan yihiin qorshe ay sheegeen in wadooyin loogu sameynayo suuqaasi qorshahan oo wado maamulka deegaankaasi ayaa ujeedkiisa waxaa lagu sheegay inuu yahay in lagu nidaamiyo wadooyinka suuqaasi kaas oo dhowr jeer hore gubtay lana waayay sidii hantida halkaas taal loo samata bixin lahaa se yeeshee ganacsatada yaryar ayaa ku doodaya in qorshahan uu meesha ka saarayo hanaankii ay ku ganacsan jireen sidoo kalena aanan loo soo bandhigin halka ganacsiyadooda la geyn doono dadkaas cabanaya waxaa ka mid ah Isniino Soomow oo muddo dheer ku ganacsan jirtay suuqaasi khadka taleefanka ayay ugu warantay wariyaha BBC-da Kawthar Maxamed Cabdullaahi waxaan ka cabanaynaa maama oo suuq Mugdi joogto oo ganacsi suuq Mugdi ku ganacsanayso oo ilmaha oo ma gorinayay marka suuqan in yarna maana ku jirin in badan baa ku jirne marka haddana gafanaha la soo doortay Nadiif Jaamac hadda shal u noo imaade una dhehe gaari korkiisu nagala hadle hadda maamooyinkii intuuna dhac umaade muuna salaamin hooyoy seedihiin maxaa noqodeen ma gubadeen xisaabtii aa ka rabnay inuu nala dashado oo maxaa uuna wareesto oo annagana haddii wareesi la yeelano oo aasweyne aa u fadhinay inta nala dhahay jimcadii umaane marka haddana orodku isqaale une gaari korkii untuu fuule gaariga korkiisa hadduu fuulo wuxuuna dhahe waxaa yeeshiin galbada alaabtiina qaata aaraglaba bishan soo socdo suuqa iskaaga baxa iskaaga galbada in badan baad suuqa ku ganacsanayay baa tiri imise sano ayaad suuqa ku ganacsanaysa marka hooyo 20 sano waa ku ganacsanayay aad iyo aad baa ugu barwaaqaysaneen gaari wuu mari hayaa hadduu gaariga carrada wada uu yaho hadduu gaariga alaabta wada uu yaho hadduu gaariga biyaha wada uu yaho gaari wuu mari hayaa hadday fiicni iyo wanaag ay jirto markaa hooyo haddana maxay ahayd walwal weyn baa hadda maanta iyo shalay aad baa walwal weyn noo hayaa hadda wallaahi qadaha doon maana qadayn warbahaarka meesha naga haasto tira ahaan dadka halkaa ku ganacsanayay ee wadada galay ee hadda la yiri ha guuraan maxaa lagu qiyaasi karaa waana dad noocee ah dadka wuu badan yahay oo macaanay dadka saa'id buu badan yahay wallaahi dhammaamooyin
oo ilaa midisa waxba haysanin oo maskiino oo dadna waxaaba jirtaa dukaamihii siduu u dhiste oo deen uu ugu dhiste waxaaba jirtaaba deenda hadda si miskaaga bixiyo lalayaho hadda dukaamihii alaab lama kashanin maamulka Gaarisa iyo ganacsatada suuq mugdi ee ku ganacsada waxay toddobaadkan kulan ay yeesheen kadib ku heshiiyeen in suuqa wada loo sameeyo marka soo la isma dhihi karo arintan waa laga heshiiyey wallahi wadada saa'id bay hadda u weyntahay nafaas bay leedahay oo waa la mari karaa oo sidaa kuu sheegay gaari wuu mari karaa oo jidka dadka wuu mari karaa hadday ficlin jirto hooyoy meesha waxaa jira wax kaloo maxay aheedo waxaa ka jira dadka oo dukaamaha joogaan oo ganacsanayaan 40 nin intay u tageen kafanaha oo la fadhiisteen baa dhaheen dadkan sidii maxay aheedo wadadan looga bixin lahaa oo jidkan wax weyn looga dhig lahaa oo gaariyo ku kala fireen lahaayeen baa rabnaa in wada halka laga sameeyo soo dan ugu jirto inta badan dadkii ku ganacsanay suuqa maadaama marar badan uu gubtay oo dabdamisku xitaa meel uu soo marin waayay hadii hooyo inay maxay aheedo wax kale uu jiro ma ogiya hadda wadada gaariga biyooraha si caadi ah buu u mari hayaa gaariga carrada wada si caadi u mari hayaa hadda fiicna jirto suuq mid la dhahay waa suuq weyn oo ababla aamudi adoon ka fanaha suuqa intuu dhiso oo jidal uu ka bixiyo oo uu hagaajiyo oo intuu dhiso uu doomaamooyin soo xarooday soo gala aad bay wanaagsan leeyahay laakiin iska socda aniga ilaa hadda waxaa qaba wiilal afar wiil waxaa ku dheeray laba wiil hadda galaas ay jireen ilmihiisa inta umaadaan idaan ay wax barasho keen hooyay waxaa cuno keen hooyay bareeshaadkii abakayaad inuu madax igu dhufto barasabku uu idin yimid uu nila hadlay marka cabashadiina maamulkaba u gudbiseen wallaahi hadda maxay ahayd uu nala joogsan lahaa oo uu na salaami lahaa uu dhihi lahaa maamooyin hadda xaaladda jid baa la bixinaye xaaladda seebay haduuna dhihi lahaa dukaamaha intaa gadaal u ridi xano yareysanaa jidka sii kordhinayeen laakiin aadimo waa nin nala dashada iyo nin hooy maxaa xaaladda see la yeeli ninna dhehe ma wajabtabo hadda sidee rabtaan marka hadda waxaan rabnayaa in ka fanaa midda intuu iskaaga noqdo inuu baleen kale keeno oo annaga ismaamulno oo rakoodna dhiilaa joogaa oo kamaadi had cusuban oo lasoo doortay kamaadi kaleba wuu jire markaa ragkaas intuu noo umaado ragga waa walaalahayna asaga waa walaalkayna ka fanaha waa soo dooranne aad baa u jecleen wiilkeennuu ahaa hadda wallaahi waxaan rabi lahayn intuu soo celiyo bareenkaas inuu ku soo celiyo annaga dada weyn baan nahaa oo komitida intuu ku soo celiyo uu dhaho ismaamulo jidka hala kordhiyo taasi waxay ahayd isniino somow oo khadka taleefonka ugu warramaysa wariyaha b b c da kawthar maxamed cabdulaahi waatan markana ciyaarihii aynu eegnay maanta waaxad waxaa dhacaya kulamo muhiim oo ka tirsan koobka Premier League kooxda Arsenal oo la qaban layahay oo shantii kulan ay dheeshay badisay 100% ay ku socotaa kooxdaasi ayaa waxay ka hortagaysaa kooxda Manchester United oo laba kulan oo shantaasi kulan kamid ah laga soo badiyay haatan saddex kulan oo xiriir ay Man United soo badisay garoonka Old Trafford ayay ku wada balansan yihiin ciyaartaasina waa ciyaar dhici doonta galabta 6:00 galabnimo waqtiga bariga Afrika Brighton and Hove Albion ayaa ka soo horeysa iyo Leicester City oo ciyaaraya 4 galabnimo waqtiga bariga Afrika xalayna kooxda Man City ayaa fursad qaali ah oo ku qaban lahayd horyaalka Premier League iska khasaarisay kadib markii hal isla dhaafayeen kooxda Aston Villa Wolverhampton Wanderers waxay hal iyo ka adkaatay Southampton Tottenham Hotspur laba hal waxay dirtay kooxda Fulham Nottingham Forestna waxaa 3-2 ka adkaatay kooxda Bournemouth Newcastle United iyo Crystal Palace Every isla dhaafayeen Chelsea laba hal waxay ka go'aysay kooxda West Ham United Brentford ayaa 5-2 ka adkaatay kooxda Leeds United Everton iyo Liverpool waxay ku kala baxeen eber intaas ayaan ku soo gabagabeynaya idaacadii subaxnimo soo saaray Axmed Badar intaasna waxaa aynu balana ka horeysa labada duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo